luqadee ayuu ku hadli jiray nebi aadam calayhi salaam. dood badan ayaa ka taagan, duniduna cid weliba waxay sheeganaysaa in afkoogu uu ku hadli jiray. waxaa sidoo kale su'aal ka taagan tahay, luqadaha dunidu waxay ka farcameen hal luqad sida la isku wada raacsan yahay. haddaba waa tee luqaddaasi? cilmi baaris socotay wax ka badan 5 sano ayaa tilmaamaysa in loo malaynayo in nebi aadam uu ku hadli jiray afka Soomaaliga sida uu sheegayo qoraal Rashiid Xaaji. yaqiinta dhabta ah Ilaahay ayaa og. waxaase warbixintan ku faaqidaynaa luqadda asalka ah ee dunida iyo erayo caddaynaya xilligii uu jiray afka Soomaaliga, inagoo xigan doona cilmi baarista uu sameeyey qoraal Rashiid Xaaji. muuqaalkana sii faafi. afafka ama luqadaha caalamka waxay soo bilowdeen bilowgii koonkani ama xilligii nebi aadam. inkastoo aan la sheegin luqadii uu ku hadli jiray nebi aadam calayhi salaam, sida aan wada ognahay ma jirto meel ay diintu uga waramayso luqadda dhabta ah ee uu ku hadli jiray nebi aadam. laakiin taasi beddelkeeda alle waxa uu yidhi waxaanu barnay wax kasta ama aqoon kasta. qarniyadii dambe waxaa xoogaystay loolanka luqadaha caalamka, waxaana koox weliba ay ku doodaysaa in luqadoodu ay tahay tan asalka ah ee luqadaha oo dhan ay ka farcameen, ilaa heer la mamnuuco doodaha luqadaha guud ahaan dunida qarnigii 18aad. qoraal Rashiid Xaaji Ibraahim oo ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ayaa cilmi baaris wax ka badan 5 sano uu waday. waxa uu qoray buuggan oo uu ku magacaabay Aadam's Word, oo la micno ah hadalkii nebi aadam. cilmi baaristan oo uu ku soo bandhigay buuggiisa waxa uu ugu kuurgalay asalka afka Soomaaliga iyo meesha uu ka yimid. baaritaankiisan waxa uu ku ogaaday in af Soomaaligu ka mid yahay luqadaha ugu qadiimsan dunida, haddii uusanba ahayn midda ugu qadiimsan. qoraal Rashiid waxa uu xusayaa erayo muhiim ah oo uu ku doodayo inaysan samayn karin qof karaamo leh ama nebi oo kale mooye. waxyaabaha uu afku ugu salaysay mucjisada uu leeyahay kaysow afku inuu ahaa af diimeed, af mucjisadiisa qaba, af karaamaysan, af nin scientist ka caqli badan oo karaamo ilaahay siiyey oo nebi oo afka sameeyey. mid baan kuu sheegaya, adigaan kugu soo celiyo kaysow. beerka waynu naqaanaa shaqada uu qabto bini aadamka. wuxuu ka reebaa, wuxuu safeeyaa wax alaaliya wixii wasaqdi. samadaha macnaheedu waa beer. beer ayaa dub u akhriyaysa. waa reeb, waa ka wax reeba, waa ka wasaqda dadka reeb. beer waxay noqotay reeb. wuxuu reebayaa scientist unbaa garan kara kelmadda, magacaa bixin kara. nin scientist oo professional oo dee aynu dhakhtar ah ayuunbaa magacaa bixin kara oo garan karaya functionka uu qabto kaasoo keliya maaha. waxaan ku yidhi sanbab waa ka keliya soo bamgareeya sanka, waana waxaa lagu yidhi san iyo bab. iyaa garan karaa. soomaalideennan haddaynu maanta bal maanta isu taga soomaaliya oo dhanoo waanaynu ognahay. miyay kula egtahay adiga dadka maanta af soomaaliya ku hadlaa dad gaadhay waktigaa inay cilmiga sidaa ogaada yidhahdaan kana sankuna waa kii soo bamgareynayey ee naqaska ka soo saarayay sanka, beerkuna waa kii inaga reebayey wasikda. maxaad u malaynaysaa adiga markaa ku weydiiyo su-aasha? maskaxdaada miyaanay ka weyneyn dadkii afkan sameeyey? afka Soomaaliga waa midka ay ka farcameen luqadaha caalamka oo dhan, sida uu qorayo qoraal Rashiid Xaaji. waxa uu Soomaaligu ka horeeyay luqadaha dunida, isaga oo ka waramaya sida ay suurtagal ku tahay. waxa uu yidhi erey kasta oo af Soomaali ah waxa uu leeyahay tixraac, meel uu ka yimid, ama waa erayo isku tegay oo macno guud sameynaya. haddii dhinac kale loo akhriyana macno cagsi ku ah laga heli karo. ma jiro af sidaasi oo kale ah, ayuu yidhi qoraal Rashiid Xaaji. waxaa kale oo uu xusay ereyada la leeyahay waxaa laga soo amaahday luqado kale inay taasi been tahay. maxaa yeelay haddii ereygaasi loo kuurgalo waxaa la helayaa sida uu ku samaysmay ama macnaha uu ka yimid, halka luqadiisii aan xataa lagu icraabi karin. iminka dowlad baynu ka soo qaadanay for example. dowlad markaad dub akhrid horta sideedaad ka fahmaysaa dowlad adaan markeeda horeba dub u akhriyin.
haddaad kala qaado waa laba kelmadood af soomaaliga saas waa nadar mucjiso kalu leeyahy waa kelmado isu tegtegay markaa daw iyo lad weeye horta marka hore kelmadda halkay ka soo jeedaan waa daw lad xaq right weeye dawgii waxaasaan daw u leeyahay inaan nabadgelyo ku seexdo dowladda waxaa macnaheedu yahay waajibkeeda maadaama aan dowlad haysto waa inaan nabadgelyo ku gama aan ku seexdaa dawlad haddaad taa kusii fahmi weydo iyadaa dub akhriyaysa dawlad markaa waxay noqonaysaa markaa dalwad bay noqonaysaa waa tii dalka hogaaminaysay waa mucjisaduu leeyahay af soomaaliga aan afka lahayn haddaan ku dhaha gacal waa gacal waa tol haddaanad gacal lahayn maxaad kalee ku meel mari kartaa iyadaa dub akhriyaysa waa lacag maadaama ay taagan tahay doodda ah luqadda uu nebi aadam ku hadli jiray ama luqadda ay ka farcameen dhammaan luqadaha dunida qoraa rashiid xaaji waxa uu qabaa in soomaaligu uu dooddaasi qayb ka yahay islamarkaana ay far u taagan tahay waxaa kale oo uu xusay in baaritaankiisa uu ku ogaaday luqad kasta oo caalamka looga hadlo in laga heli karo erey af soomaali ah oo ay naga amaahdeen laakiin qoristiisa ay nooga hormareen maadaama afkeena 50 sano ka hor uun la qoray doodaha caalamku waxay qabaan carabiga iyo hibrowga oo ah luqadda yuhuudda in ay asal yihiin laakiin qoraagan Soomaaliyeed waxa uu ku doodayaa in Soomaaligu uu ka qadiimsan yahay ama la jaad yahay luqadahaasi haddaba adigu aragtidaada hoos nagula wadaag muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee